sababta aadan caruurtaada qof aadan gacantaada ahayn aadan u gelinin ayaan maanta kuu sheegayaa. Wax badan waxaa soo ifbaxa in la yiraahdo caruurta tacdiyaa loo geystaa. Tacdiyada inta badan waxaa u geysta qof kamid ah qoyska, qoyska ay aamineen oo guriga kula nool. Adiga qof markaasi leys dhahayo qofkan qofku u dhow yahay oo aan laga ilaalinayn. Badanaa waxaa dhashaan waxyaabo qarsoon oo guri walba ka dhaco oo daah gadaashiisa ama albaabka gadaashiisa. Sida dad badan og yihiin albaab walba oo xiran gadaashiisa shar iyo kheyr labadaba ugu imaado. Arrintan waxaan kusoo qaadan doonaa oo aan tusaale yar uga dhigin doonaa qoraal kooban ee gabar Soomaaliyeed ay ku baahisay page ay ku kulmaan hooyooyin Soomaaliyeed. Balse inta aan u gudbin taas waxaan rabaa marka hore inaan idin iraahdo kusoo dhawaada channelka Kaaha Nolosha mar kale. Ramadaan mubaarak. Inkastoo ramadaanka gabagabada galo wax badan dadka Soomaalida waxay inkiraan ama dafiraan tacdiyada ka dhaca guryaha. Dib ugu laabta taasi tacdiyada dadka qoyska ay isku geystaan. Inta badan dadka tacdiyada la kulma dadka waaweyn marka laga reebo waxaa jiraan dad aan awoodin inay isdifaacaan, dad u nugul wax kasta oo dhibaato ah, mid jireed mid maskaxeed. Haddana loo baahan yahay in dadkaasi laga ilaaliyo waxyaabahaas oo dhan. Waa caruurteena. Anaga waxaan nahay Soomaali, waxaan nahay dad dhaqankoodu uu yahay dhaqan iska furan, dhaqan wax wada qaybsi ah. Guri walba oo Soomaaliyeed waxaa ku nool shaqsi kaleetood oo shaqsi koraad ah oo familka ka tirsan ama banaanka. Badanaa shaqsiyaadka gurigaasi ku nool waxaa laga yaabaa in ay shaqsiyaad familka aad ugu dhow yihiin amaba familka ay ka tirsan yihiin amaba familka ay qaraabo kore yihiin amaba macruuf ahaan ay iskula nool yihiin. Waxaa dhici karta gurigaas inuu ku nool yahay caruur yaryar ama wiilal ha ahaadeen ama gabdho ha ahaadeen. Inta badan gabdhaha ayaa dhibaatooyin la kulma. Midna waa xaqiiqo jirta. Xaqiiqdaas oo ah in caruurta yaryar marka dhibaato loo geysto aanay awoodin in ay sheegaan oo aanay soo bandhigi karin. Dhaqanka Soomaalida miyaa ma aqaan dhaqamo oo yaab leh in cunugii uu cabsi ku beeran tahay. Taasoo ah in ilmihii aan lala sheekaysan, waalidiinta aysan la sheekaysan oo aanay aaminayn ilmaha wax ku saabsan dhibaatooyin soo gaara ama waxa ay la kulmaan oo ilmihi mar walba la beensanayo. Taas waxay dhiirigelinaysaa in ilmahaaga god ku sii dhacaan dhibaatooyinka uu sheeganayo markaas uu sii qarso. Waxay tiri ayeeydey waxa ay dhashay 3 hooyaday iyo mid abtigay ah oo asagan hooyaday abtigayna labadooda reer ayay lahaayeen. Guriga waxaa ku noolaa abtigay oo kuray ah wiil dhalinyaro ah oo 15 jir ah iyo ayeeydey. Waxaa la ii geeyay ayeeydey inaan caawiyo. Waxa ay tiri ayeeydey markii ay baxdo oo qaraabo salaan ay aado abtigay uu dhibaateyn jiray tiri wuxuu ii geysan jiray tiri dhibaatooyin mid jireed iyo mid maskaxeed labada isugu jira. Wuxuu igu soo xiran jiray qol, wuxuu isku dayi jiray inuu i kufsado asagoo aan dhibaato xoog leh gudaha ii gaarsiinayn ayuu haddana wuxuu samayn jiray tiri isku dayo farxumeyn ah. Markii aan qayliyana wuxuu ila soo bixi jiray tiri baangad wuxuu dhihi jiray qoortan kaa goynaya haddii aad hadashid. Dhibkaas gaaray ayay tiri inkastoo waxay tiri wax weyn oo dhaawac oo gudaha ah uusan i gaarsiin oo si rasmi uusan ii kufsan. Haddana waxay tiri wuu i qaawin jiray wuuna dhibaateyn jiray tiri. Waxay intaas ku darto ay tiri waligay iyo Allahey cabsida aan abtigay ka qabay darteed afkayga ugama soo bixin hadalkaas. Hooyadeyna umaana sheegin, ayeeydeyna uma sheegin ay tiri. Waayo waxaan ka baqayay ayay tiri in aan la aaminin amaba dhibaato aniga soo gaarto. Dabcan waa dareemi kartaa ilmo yar oo dhibaato noocaas oo kala ay qabo haddana dareen sii qaba in waalidkiisa ay aaminaynin oo ay wax uun qarinayaan. Arrinta muhiimadeeda maanta aan rabo inaan ugu golleeyo waxay tahay fadlan hooyo ama aabe ilmahaaga qof aadan gacantaada ama gacanta aabihiisa ha gelinin. Haddii aad gelinaysana guriga ilmahaaga ay ku noolaanayaan waa inaad la socotaa oo aad ogaataa shakhsiyaadka ku nool. Gurigaagana ha keensanin dad muxrim ka noqon kara caruurtaada. Tusaale ahaan walaalkaa adiga kula dhashay inkastoo badanaa abtiga iyo adeerka hooyada la dhashay aanan waxyaabaha noocaas ah ee Soomaalidu tiraahdo kama suurtoodo. Haddana ogow bini'aadanka naf iyo shaydaan ayaa xiriira. dhalinyarada xilliga ay
galayaan teenage-ka wax kasta oo xun oo jinsi ah waa ay samayn karaan marka laga reebo mid ilaahay ku xiran oo iimaankiisa saafi ah oo aaminsan ilmaha walaalihiis in uu asaga ilmihiisa waxba aysan dhaamin taa waxaa iisii dheer dadka rabo gurigaaga inay kugula noolaadaan ee aan ehelkaaga ahayn waxaa aragnaa dhalinyaro badan oo guryaha soomaalida ku nool oo haddana ama ha ku yimaadaan dhinaca ehelka ha ku yimaadaan ama dhinaca caruurtaada ha ku yimaadaan gurigaaga iska soo galo albaabkiisa u furan yahay sideedaba gurigaaga albaabadiisa inuu ku xiran yahay amaankaaga ayaa ku jira kan ilmahaaga ayaa ku jira waayo mar haddii aad ilmo yar aad haysato waxaad u baahan tahay 24 soomaalidu ma jecla in la yiraahdo ilmo yar ayaa la kufsaday ilmo yar ayaa qof ehelkiisa dhibaato u geysta amaba qof dumar oo tiraahdo abtigay ama macalinkayga dugsiga ama adeerkay ama waxyaabo aad ayay u necab yihiin mana aaminaan oo waa ay beensadaan laakiin aniga weligay maba beensaninba waxaan ogahay qof wax walba inay dhici karaan adduunyada hadda lagu jirana waaba kasii tagto wax kasta oo xun ayaa adduunka ku nool xilliyadii horena way jireen kolley laakiin anaga ayaan ku baraarugsanayn dadka wacyigoodana intaa wuu kasii hooseeyey dadku ma ahayn dad la socda waxaa dhici kara dad qiyaasi kara waxaa badneed kalsoonida iyo is-aaminitaanka iyo isdhexgalka ayaa badnaa waxaa badnaa in ilmaha la yiraahdo waa caruur aan la dhegaysanin balse hooye iyo aabe waa muhiim inaad ilmahaaga dhegaysatid tusaale ahaan saacado yar oo ilmahaaga iskuulka ku maqan yahay markuu guriga kusoo laabto markuu yimaado la sheekayso ka dhegayso wax walba xataa hadday yihiin wax maalaayacni ah oo aan muhiim ahayn hana isku dayin inaad tiraahdid ma dhici karaan waxaan ama been ayaad sheegaysaa waayo taas wuxuu hoos u dhigayaa kalsoonida cunuga uu wax badan kugu sheegi lahaa wax badan kugula wadaagi lahaa noqo dhegaysta wacan oo ilmihiisa u dhaga nugul dhegayso wax walba ilmahaaga kuu sheegaan waayo kalsoonida cunugaagana kor ayay usii qaadaysaa waxa uuna cunugaaga markasta ku dhiiran karaa in uu kula wadaago wax walba oo soo food saaro tacadiga caruurta loo geysto ma jiraan ama ma jiro wuu u jiraa marka waxaa kuu wanaagsan in indhahaaga mar walba ay furnaadaan dad walbana aadan aaminin ha leys aaminaya leys aaminaa karoon waayo waxaa ku jira badbaadada ubadkaaga intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkan yar haddii aad ka heshay sii sheer garee wixii ra'yigaaga